kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa deegaan channel TV oo aad ka daawataan bartaan ku leenahay YouTube-ka qodobada maanta aynu hayno waxa ugu muhiimsan deegaanadii shalay ay ku dagaalameen ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland oo maanta degan lagana soo sheegay deganaansho iyo madaxweyne Farmaajo oo sheegay inay Puntland u soo baxsadaan madaxda ururka al-shabaab ee argagixisada ah marka ay lagaga adkaado koonfurta Soomaaliya ama ay duqeynta ku badato ay soo galaan Puntland oo kala dhuntaan Puntland ay hooyo noqotay haddaba aan ku bilownay maanta waxa degan magaalooyinka waxa degan goobihii shalay lagu dagaalamay ee ay ku dagaalameen ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland oo magaalada Tukaraq la yiraahdo ay wali ciidamada Somaliland gacanta ku hayaan maalinkan maanta waxaana inta badan deganaansho badan laga dareemayaa aaga wax dhiilaahina ma jiraan marka laga reebo ciidamada oo soo fadhiya oo isku dhow iyo kuwa iyo Puntland oo guud ahaanba joojisay isu socodkii labada maamul ee gaadiidka dadweynaha iyo dadka caadiga ah sidoo isugu socon jireen kuna soo rogtay bandow ilaa iyo amar dambe waxaana wali ku sugan dowlad goboleedka Puntland madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo isaguna wali booqashadiisii gudanaya kuna joogi doona baa la leeyahay maalmaha soo socda waxa kale oo maanta cusub oo ku cusub deegaanadaasi in labada dacalba ay aad u foojigan yihiin walow dagaalka shalay aanu qasaare dhalinin oo aan wax qasaare ah haba yaraatee laga soo sheegin dagaalka shalay labada dacal midkoodna waxaana tani ay imanaysaa baa la leeyahay waqti gobolku in badan nabad ahaa baaqiyo badanna waxa uu soo jeedinaya madax dhaqameedada iyo dadka deegaanada dega oo dhammaantood ugu baaqaya nabad in lagu soo dabaalo deegaanka oo ay xasilooni ku soo noqoto nolosha dadka bini'aadiga ah waxaana dadku durba cabasho weyn ka muujiyeen isu socodka ay joojisay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo dadku rayidka ah saameyn ku yeeshay marka loo eegayo sidii hore caadiga ugu nolosha ugu socotay waxaana iminka arrimahaasi la rajaynayaa inay furfurmaan toddobaadada soo socda daawadayaal qodobkeena kale ayaynu gelaynaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo ayamahanba booqasho ku joogay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo lagana yaabo socodkiisii Garowe inuu maanta u baxo dacalka Boosaaso ayaa waxa la sheegaya inuu sheegay inuu la dagaalamayo ururka al-shabaab kana ciribtiri doona Soomaaliya guud ahaanteed gaar ahaan deegaanada Puntland oo uu sheegay inuu imka saldhig weyn ku yeesheen oo ay mar walba u soo baxsadaan madaxda ururka marka ay diyaaradaha wadanka Mareykanka iyo wadamada kale ee ka taageeraba ay duqeymaha la eegtaan madaxdoodu ay u soo baxsadaan buuraleyda galgalo oo noqotay lama galay ay halka u xanta dhigteen ururkaasi al-shabaab waxaana madaxweynuhu aad ugu booriyay dowlad goboleedka Puntland inay ka qayb qaadato sidii loo ciribtir lahaa ururkaasi waxaana hadaladiisi kamid ahaa madaxweynaha kulanti wanaagsan dhibka koonfurta yaala Puntland iyo waqooyi iyo meel walba yaala dhibka kuwan ugu haya oo shabaabka ah markay culays dareemaan khasbiyan waxay aadi karaan meelaha ay leeyihiin waad ku dhuuman kartaa oo aan isleeyahay hadda inay bilaabeen inay soo galaan buuraha Puntland isku mowqif baan ka nahay isku waxaan ku jirnaa front yaa ku jirnaa waana la dagaalaynaa cadowga Soomaaliya haysta oo dhibka ku haya hadday joogaan Puntland iyo hadday joogaan koonfurta hadday joogaan saas darteed waxa weeye inaan adkeenno amniga adkeeno meel walba Soomaalida joogtay amniga adkeyso